talada haya Somaliland ee kulmiye oo uu horkacayo gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin Axmed ayaa maanta dalka ku soo dhaweeyay Professor Maxamed Faarax Xareed oo ka tirsan mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye u qaabilsan qaaradaha Ameerika oo maanta dalka dib ugu soo laabtay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga talada haya Somaliland ee kulmiye Maxamed Kaahin Axmed gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye Jaamac Shabeel Salaadiin Waxgarad ya garabka haweenka ee xisbiga kulmiye oo barxad hore garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa warbaahinta kula hadlay ayaa si wada jir ah u soo dhaweeyay sarkaalkani rasuulillah halkan waxaanu ku soo dhaweynaynaa Professor Xareed aqoonyahankii cilmiyahankii dhaqaalayahankii ayaanu ku soo dhaweynaynaa halkan waxaanu ku leenahay ku soo dhawow dalkaagii dadkaagii ururkaagii oo garab walba leh ku soo dhawow Professor Xareed waan soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waa aqoonyahanada dadkii reer Somaliland aqoonyahanada ahaa ee mudanka ahaa caqligiisa iyo cilmigiisa iyo qof ahaantiisaba waynu u baahannahay dadkan sharafta leh hablo iyo rag bay soo dhaweeyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Professor waan ku soo dhaweynaynaa Professor aad iyo aad ku soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsanaynaa loo timaado Professor Maxamed Faarax Xareed ayaa dhankiisa ka mahadnaqay sidan ballaaran ee dalka loogu soo dhaweeyay waxaana uu sheegay in Somaliland u yimid sidoo uga qayb qaadan lahaa ololaha doorashooyinka Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh dhamaantiin waxaan dhamaantiin niga mahadnaqayaa xubnaha gaar ahaan xubnaha bixi for President 2017 iyo xubnaha kulmiye campaign group iyo taageerayaasha kalaba iyo waxaan si aad iyo aad oo kal iyo laba ugu mahadnaqayaa aad iyo aad ugu diirsaday soo dhaweynta ka soo qayb galeen madaxda xisbigu gudoomiyaha xisbiga koobaad Maxamed Kaahin iyo gudoomiyaha golaha dhexe Jaamac Shabeel iyo hawlwadeennada kale xisbiga maanta halka ku sugan rag iyo dumar dhalinyar aad iyo aad baan mahadnaq kal iyo laba idigu soo dhaweynaya Maxamed Yuusuf Iimaan Bulsha TV Hargeysa.